anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dawladoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay inay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yiraahdo majoritarian la yiraahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waana ogaa inuu dib la imaan karo laakiin waa idin tanaasulkaygu ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan dhuusamareeb halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markay ay kulmeen samareeb 1 samareeb 2 waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballanay inaan samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeena aan go'aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idinla tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal walaalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood